soo dhawaada saaxiibayaal wiilkii sirta Filimis sheekadeennu waxay ku bilaabmaysaa sanadkii 1641 halkaas oo xabsi ku yaala dalka Faransiiska nin lagu magacaabo James Callian lagu xiray dambi ah inuu cadawga ka iibinayo hub iyo inuu khalkhal geliyay magaalada habeenada kamida askar ayaa u soo jeeday si ay u dilaan markii uu geeridiisa si dhow u arkay Callian wuxuu bilaabay inuu cod dheer ku dhaho faracayga ayaa sii wadaya hawshan aan qabyada kaga tagayo isla markiiba askari wax dila ayaa wajiga ka saaray maaskara bira oo dab lagu kululeeyay kadib sheekadu waxay u wareegtay 360 sano kadib halka nin lagu magacaabo James Callian uu taagan yahay dhismaha NATO gudihiisa isagoo tusinaya hub cusub oo shirkadiisu samaysay shirkadiisa magaceedu waa Maris Industries taasoo lacagta ku baxday oo dhan ay bixisay NATO hubkan casriga waxaa lagu sameeyay nanotechnology waxaana magacooda la yiraahdaa nanomitis James wuxuu sheegay in nanomitiskan ay baabin karaan wax kasta si kasta oo shaygaasi u adag yahay haddii aan doonana isticmaalkooda waxaan ku burburin karnaa magaalo dhan laakiin hubkani maaha mid la mid ah hubka nuclear-ka mana sii daayo wax shacaaca waana mid ay aad u fududahay in la xakameeyo markaad tiraahdo jooga way istaagayaan kadib James wuxuu sheegay in nanotechnology-ga loo soo qaadi doono warshada Kazakhstan halkaasna looga soo diri doono halkan kadibna waxaan ku kaydin doonaa bakhaarka NATO maalintii xigtay 4 bam oo nanomitis ayaa lagu riday shandad waxaana lagu wareejiyay ciidamada NATO howlgalkan mas'uuliyadiisa waxaa la siiyay 2 askari oo lagu magacaabo Duke iyo Ripcord laakiin jidka dhexdiisa si lama filaana waxaa helikobtartooda u soo dhawaaday diyaaradda Hasson taasoo rasaas xoog ku furtay ciidamada NATO waxayna bilowday inay disho askartii jawaabta weerarkan ciidamada NATO waxay ku rideen gantaalo kala duwan laakiin diyaaraddaas aan la garanayn wax saameyn kuma yeelan gantaaladu iyadoo isticmaalaysa hubkeeda diyaaraddu waxay qarxisay dhammaan baabuurtii xamuulka ee ciidamada NATO kadibna dhulka ayay u soo degtay waxaa ka soo baxday haweeney taasoo ahayd kabtanka kooxdan asxaabta haweeneydan waxay laayeen dhammaan askartii badbaaday iyadoo jahawareerkaas uu jiro ayay la soo baxday shandadii nanomitiska waxayna bilowday inay meesha ka tagto laakiin markii Duke uu arkay arrintan wuxuu bilaabay inuu haweeneydaas eryado markii ay is hor yimaadeen Duke wuxuu gartay haweeneyda magaceedu waa Brones waxay samaysay weerar degdega si ay u baxdo wayna ka tagtay meesha laakiin si lama filaana waxa goobta soo gaaray ciidan qarsoodiya waxay isticmaalayeen hub aad uga sii casrisan kii hore waxayna dhaawaceen asxaabtii Brones markii Duke uu arkay arrintan wuxuu eryaday Brones wuxuuna ka dafay shandadii laakiin markaas ciidankii kale ee yimid ayaa Duke ka dalbaday shandada Duke si cad ayuu u diiday wuxuuna yidhi waan dhimanayaa laakiin tan ma bixinayo anagu waxaan nahay dhanka NATO idinku dhankii ayaa tihiin kadib ciidankaasi ay Duke u qanciyaan waxay daareen qalab sawirka soo gudbiya oo uu ka muuqdo General Hawk oo leh shandada si dadkan si ay u damiyaan muddo kooban si aysan tuugadu u soo raadin shandada laakiin Duke intaas kadib ma uusan ogolaan wuxuuna yiri hortayda ku damiya markii shandada la damiyay Duke iyo Ripcord way ogolaadeen inay raacaan muddo yar kadib diyaaradii waxay gaadhay meel qarsoodiya oo ku taala saxaraha Masar halkaasoo dadkani u yaqaaniin The Beat markii ay halkaas gaadheen General Hawk ayaa soo dhaweeyay Duke iyo Ripcord wuxuuna u sheegay waxaan ahay kabtanka koox military oo aad u qarsoodiya kuwaas oo la yiraahdo G.I. Joe kooxdan weyn waxaa laga soo xulay askarta ugu fiican wadamada dunida oo la isku keenay isla markaas James ayaa qalabka live projectorka kala soo xidhay kooxda G.I. Joe laakiin aad buu u xanaaqsanaa sababtoo wuxuu ka cabsanayay in mid kamid ah bamka nanomitiska uu jabay James wuxuu amar ku siiyay nin kamid ah kooxda inuu furo shandada nanomitiska ninkaas wuxuu geliyay passwordka markii shandadu furatayna waxaa la xaqiijiyay in 4 nanomitisba ay bad qabaan markii uu taas arkay James uu degay wuxuuna isla markiiba damiyay qalabkii live protectorka kadib markii uu aaday gujis James wuxuu dhammaan xanaaqiisii kula duldhacay Brones sababtoo waxay gacanteeda ku lumisay shandadii nanomitiska laakiin halkan waxaan ku ogaanaynaa in weerarkan oo dhan uu ka dambeeyay James qudhiisa si uu isticmaalo hubkii uu sameeyay isagoo aan wax shakiya aboorin James wuxuu yiri si xeeladaysan ayaan kooxda G.I. Joe ugu furay shandada kadib markii ay xireen si toos ah waxa u shaqeeyay qalabka raadraaca sidaas ayayna ku ogaadeen goobta ay ku sugan yihiin halkaas oo ah saxaraha Masar intaas kadib James wuxuu amar ku siiyay Brones iyo Storm Shadow in xaalad kastoo ay jirta ay shandadaas ka soo dhacaan G.I. Joe sidoo kale wuxuu nin daacad u ah oo la yiraahdo Sartan ku amray inuu saldhigga biyaha hoostiisa uga diyaar
garoobo howlgalkan markii aan gaadhnay xarunta dhexe waxaan arkaynaa saynisyahan lagu magacaabo doctor maskaxda ka dambeysay waxaan oo dhan waa doctorka tijaabooyinkiisa ayuu ku sameeyey ciidan gaara isagoo isticmaalaya liquid nanometers sababtoo ah jidhka askartan waxaa ku jira nanometers ma dareemayaan cabsi iyo xanuun toona ciidankan cusub ee khatarta doctorku wuxuu u bixiyey cobrotropis sidoo kale doctorku wuxuu sheegay kuwan dhammaantood sidaan rabno ayaan u xakamayn karnaa weligoodna nama khiyaami doonaan isagoo ku faraxsan awoodda ciidanka cobra james wuxuu doctorka ku yidhi ciidankan u dir inay caawiyaan Bronis iyo Storm Shadow kuwaas oo isku diyaarinaya inay shandada nanometerska ka soo dhacaan xarunta IG Joy hadda james wuxuu shaaca ka qaaday si aan u fuliyo riyadeeda aynaan qabsado dunida waxaan diyaariyay 3 gantaal oo nanometer si aan u weeraro Ruushka China iyo USA mar haddii caasimadahooda la dumiyo cidna nagama hor imaanayso isla waqtigaas gudaha dabiit duuki wuxuu janaalho ku yiri aniguna waxaan rabaa inaan kooxdan ku biiro sidoo kale wuxuu sheegay inuu si fiican u garanayo Bronis oo ah kabtankii diyaaradii soo weerartay dhanka kale Bronis markii ay gurigeeda ku laabatay waxay la kulantay ninkeeda Daniel wuxuu yiri aad baan u walwalay wax warna kaama helin Bronis iyadoo dejinaysa ayay tiri sidaas oo dhan ha u walwalin kadib markii Daniel uu ka baxay qolka Storm Shadow ayaa si lama filaan halka u yimid wuxuuna digniin siiyay Bronis isagoo leh ha jeedin dareenkaaga waa inaan howlgalkan maanta dhamaystirnaa markii Storm tagay Bronis waxay furtay sanduuq yar oo faraanti ku jiro kaas oo xasuusiyay 4 sano ka hor Bronis waxay xasuusatay waqtigii duuke uu xaflad ku dhex weydiistay guur aad bay isku jeclaayeen Bronis walaalkeed Keir oo la yiraahdo Rex oo ahaa saynisyahan military ayaa ag taagnaa oo arkay waxaas oo dhan Bronis waxay tiri faraantigaaga waan qaadanayaa laakiin shardi ayaa jira inaad mar walba ilaaliso walaalkayga yar ee Rex waa inaysan waxba gaadhin muddo yar kadib duuka iyo Rex waxaa loo diray howlgal gaara markay baxayeen duuka wuxuu u ballan qaaday Bronis inuu Rex ilaalin doono oo uu nabad ugu soo celin doono guriga dhanka kale The Beat Heavy Duty ayaa duuka iyo Ripcord siisay tababar ku saabsan isticmaalka hubka halista ee G.I. Joy ka hor inta aysan kooxda ku biirin waa inay muujiyaan inay u qalmaan iyo in kale maalmo yar kadib generaalku wuxuu ku dhawaaqay natiijada duuka iyo Ripcord oo loo ogolaaday inay ku biiraan kooxda G.I. Joy isla habeenkaas markii The Beat uu aad u deganaa dadka badankiisuna ayna sanayeen ayaa si lama filaan diyaarad afiiqan leh waxay soo jebisay derbiga The Beat oo gudaha u soo gashay kadib Storm Shadow Sartan iyo qaar ka mid ah ciidamada Cobra ayaa soo baxay markii uu askari ka tirsan G.I. Joy bartilmaameedsaday kadib Sartan wuxuu qaatay dharkiisii wuxuuna si toos u aaday qolka General Hawk si uu si kadis u weeraro isla waqtigaas Bronis iyo Storm Shadow waxay fureen qasnadii waxayna la soo baxeen shandadii nanometerska laakiin inkastoo uu dhaawacmay General Hawk wuxuu si dirqiya u shiday alarmiga emergency-ga markii alarmiga la maqlay kooxda oo dhan way kacday si ay u joojiyaan kuwa soo dhaxgalay ugu horeyn waxay burburiyeen diyaaradoodii markii ay arkeen in diyaaradoodii la burburiyay qaar ka mid ah raggii Bronis ayaa dagaal ku galay qolka kantaroolka ee The Beat waxayna fureen saqafka sare si ay dadka kale uga baxsadaan kadib markii Bronis iyo Storm Shadow ay fureen baalasha suudhadhkooda gaarka ah si ay u doolaan duuka ayaa hor istaagay jidkooda laakiin askari ka tirsan Cobra ayaa dagaalka yimid oo duuka weeraray nasiib wanaag Ripcord ayaa waqtigii saxda ah yimid wuxuuna dilay ninkii weerarka soo qaaday wuxuuna badbaadiyay saaxiibkiis duuke gudaha The Beat waxaa ka dhacay jahwareer culus iyagoo ka faa'iideysanaya taas Bronis iyo Storm Shadow waxay bilaabeen inay baxsadaan markaas ayaa Snake Eyes jidka ka goysay Storm Shadowna uu u haray si uu ula dagaalamo isagoo la dagaalamaya ayuu dareemay in qofka ka soo horjeeda uusan ahayn qof kale ee uu yahay saaxiibkiisii carruurnimada isla waqtigaas Bronis waxay ku baxsatay wishka laakiin Scarlet ayaa jidka u gashay waxaana dhex maray dagaal aad u daran ugu dambeyntii Storm Shadow isagoo isticmaalaya suurkiisa casriga ayuu hawada u duulay Bronis ayaa qabsatay waxaana labadooduba la baxsadeen shandadii nanometerska dusha sare waxaa ku sigayay diyaarad taasoo ay fuuleen ilbiriqsi gudihiisana way ku baxsadeen dhanka The Beat Ripcord wuxuu arkay in Scarlet ay ku dhaawacantay dagaalkii Bronis isla waqtigaas Snake Eyesna wuxuu bilaabay inuu xasuusto carruurnimadiisii wuxuuna xasuustay maalmihiisii carruurnimada isagoo jooga Tokyo halkaas oo uu macbad cunto ka xaday markii la soo qabtayna Storm Shadow ayaa si xun u garaacay laakiin intaas waxaa arkayay macalinka wuxuu Snake Eye u sheegay inuu macbad ka joogo
joogo oo uu barto martial artiska. dhanka kale dunida maanta xarunta dhexdeeda James wuxuu Bronis iyo Storm Shadow ku amray inay maanta fuliyaan weerarkoodii ugu horeeyay ee argagixiso. wuxuuna ku yiri ugu horeen waxaan bumka nanometeska u isticmaalaynaa Paris sababtoo ah dawladda Faransiiska ayaa dhibaato u geysatay awoowayaashii. qolka kale doctorku wuxuu saartan ku diray cirbad nanometesa si uu ugu guuleystay inuu muuqaalkiisa si buuxda u bedelo. intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. haddii aynu soo noqono muuqaalkeena dhanka kale The Beat Duka iyo askartii kale waxay bilaabeen inay ka shakiyaan in maskaxda ka dambaysa weeraradan uusan ahayn qof kale ee uu yahay James. muddo yar kadib Breaker wuxuu helay xog cusub oo ku saabsan Bronis taasoo lagu ogaaday inay u dhaxdo Daniel kaasoo saynisyahan gacan weyn ku leh samaynta nanotechnology. markii ay fahmeen in Bronis ay u tagi doonto Daniel si uu bamka u kiciyo kooxda G.I. Joe isla markiiba waxay u dhaqaaqeen dhanka shaybaarka Daniel iyagoona u duulaya dhanka Paris. Duke wuxuu xasuustay dhacdooyinkii 4 sano ka hor markii uu hawlgalka la aaday Rex wuxuu galay shaybaar laakiin diyaarad dagaal ayaa shaybaarka bam ku riday taasoo sababtay qarax weyn iyo dhimashada Rex. maadaama uu ballankaasi oofin waayey Duke wuxuu awoodi waayey inuu wajaho Bronis. tan iyo waqtigaasna fogaanta u dhaxaysa way sii kordhaysay. markii ay Paris gaadheen Bronis iyo Storm Shadow waxay xoog ku galeen shaybaarka Daniel waxayna ku khasbeen inuu kiciyo dhammaan bamka nanometeska ee ku jira shandada. markii bamka la kiciyey Storm Shadow wuxuu dilay Daniel. isla waqtigaas kooxda G.I. Joe oo saaran gaadhi ayaa ku soo wajahnaa shaybaarka. jidka ayayna ku arkeen Bronis iyo Storm Shadow isla markiina way eryadeen. markii Bronis ay u socotay Eiffel Tower si ay nanometeska u qarxiso waxay aragtay Scartel oo eryanaysa. Bronis xabad ayay ku riday taasoo sababtay in Scartel ay ka dhacdo buundada laakiin Ripcord ayaa waqtigii saxda ahaa yimid oo badbaadiyay Scartel. kadib Duke iyo Ripcord waxay sii wadeen erishada gaadhiga Bronis iyagoo gantaalo lagu soo ridayay. isla waqtigaas Snake Eyes wuxuu ku guuleystay inuu gaadhiga hoostiisa galo. wuxuu xabad ku furay afarta taayir ee gaadhiga laakiin uu joojin waayey si uusan rabinna uu uga haray. si lama filaana tareen dheerinaya ayaa ku dhacay gaadhigii Bronis waxaana dhacay qarax weyn laakiin qaraxaas weyn kadib Bronis iyo Storm Shadow way badbaadeen iyagoo si degdeg u shaqaynaya. waxay bamkii nanometeska ka xidheen gantaal ridi waxayna u dhaqaaqeen dhismaha u dhow Eiffel Tower. Duke wuxuu arkay Bronis oo u leexatay bidix wuxuu u orday si uu u joojiyo halka Ripcord uu isku dayay inuu joojiyo Storm Shadow laakiin nasiib xumo Storm Shadow wuxuu gantaalkii nanometeska ku riday Eiffel Tower. ilbiriqsiya gudahoodna nanometeskii waxay bilaabeen inay cunaan birta Eiffel Tower. markii shaqadu dhamaatay Bronis oo isku diyaarisay inay diyaarad fusho ayaa Duke halkaas soo gaadhay. Duke wuxuu geliyay xooggiisa oo dhan si uu u helo remote-ka lagu kiciyo nanometeska. ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay inuu gaadho Bronis. Duke xoog ayuu ku galay diyaaradda kadib isagoo isticmaalaya remote-ka wuxuu damiyey nanometekii burburinayay Eiffel Tower laakiin khasaare weyn ayaa dhacay. indhaha hortooda Eiffel Tower wuxuu noqday wax dhulka lala simay. wareerkaas dhexdiisa Breaker wuxuu helay meydka askari ka tirsan Cobra. Breaker wuxuu isku dayay inuu la soo baxo xasuusta maskaxdiisa ku jirta laakiin doctorkii oo maskax badan ayaa meel fog ka kiciyay nanometeskii ku jiray meydka kuwaas oo meydkii u bedelay dambas. laakiin intaas ka hor Breaker wuxuu ku guuleystay inuu soo saaro qayb ka mid ah xasuusta. muddo yar kadib ciidamada Faransiiska ayaa goobta yimid waxay xidhan Breaker, Scartel iyo Heavy Duty. inkastoo Snake Eyes uu ka baxsaday xadhigga xubnaha G.I. Joe ee la qabtay waa la xidhay. muddo yar kadib General Hawk ayaa yimid oo u sheegay dawladda Faransiiska waan ku qanciyay in laydin sii daayo. dhanka kale diyaaradda gudaheeda Duke wuxuu maxbuus u ahaa Bronis. ugu horeyn Duke wuxuu Bronis ka raali geliyay dhacdadii 4 sano ka hor wuxuuna u sheegay sababta uu uga baxay nolosheeda geeridii Rex. kadib wuxuu u sheegay inuu awoodi waayey inuu soo hor istaago. isla waqtigaas Storm Shadow wuxuu bilaabay inuu xasuusto carruurnimadiisii. wuxuu xasuustay dagaal dhex maray isaga iyo Snake Eyes dagaalkaas oo looga badiyay. sidoo kale macallinka wuxuu Snake Eyes ku ammaanay inuu yahay dagaalyahan fiican. taasi waxay ka cadhaysiisay Storm Shadow wuxuuna iskaga tegay macbadkii Shaolin. maalintii xigtay markii Storm Shadow macallinkiisa uu khiyaano ku dilay oo u baxsaday Snake Eyes ayaa arkayay. dhanka kale garoonka diyaaradaha ee G.I. Joe Breaker wuxuu kooxda siiyey xogta uu ka helay meydkii taasoo u suurtagelisay inay ogaadaan goobta xarunta James ku taal. James wuxuu ku dhoomanayay badda hoosteeda ee waqooyiga North
North Pole. dhanka kale Bronis iyo Storm Shadow waxay Duke geeyeen god barafa markii ilaaladu yara mashquuleen. Duke wuxuu si kadis u qaatay shandadii nanometiska wuxuuna bilaabay inuu cararo. Storm Shadow ayaa weeraray Duke oo dhulka ku riday. Duke inkastoo la qabtay haddana si xeeladaysan ayuu u kaciyay qalabka raadraaca ee shandada ku jira si kooxdiisu ay si fudud uga soo gaadho. kadib Duke waxaa la geeyay xarunta Maris Industries ee barafka hoostiisa ku taala. James ayaa bilaabay inuu ka cadhaysiiyo Duke xanaaq dartiis ayuu sanka uga jabiyay James. raggii James ayaa si naxariis darra u garaacay Duke. Bronis oo daawanaysa ayaa bilowday inay xasuusato waqtiyadii ay la qaadatay Duke. isla waqtigaas kooxda G.I. oo diyaarad saaran ayaa soo gaadhay North Pole waxayna bilaabeen diyaargarowga weerarka. James wuxuu Duke u geeyay doktorka kaas oo ninka maamula nanometiska. doktorku wuxuu bilaabay inuu bamka nanometiska ku xidho gantaalada loona diro saddexda magaalo ee ugu waaweyn dunida. isla waqtigaas kooxda G.I. waxay soo gaadheen godkii barafka ahaa ee laga geliyay saldhigga. waxay laayeen dhammaan askartii halkaas ku sugnaa. isla markaas doktorku wuxuu u diyaar garoobay inuu nanometiska geliyo jirka Duke. markii doktorku maskarada iska qaaday waxaa soo baxday aqoonsigiisa dhabta ah. qof kale ma ahayn ee wuxuu ahaa Rex, Bronis walaalkeeda ka yar oo Duke u haystay inuu dhintay. Rex wuxuu yidhi maalintaas shaybaadhka waxaan kula kulmay Dr. Mindbender oo ahaa doktorkii ugu horeeyay ee nanometiska helay. wax yar ka hor qaraxa labadeenu waan baxsanay waana badbaadinay. tan iyo waqtigaas waxaan isku dayay inaan horumariyo tiknoolajiyadda nanometis. habeen iyo maalinba waxaan ku jiray dhammaystirka howlgalkan. markii diyaargarowgu dhammaaday James wuxuu diray saddexdii gantaal laakiin Snake Eyes oo meel dhow joogay ayaa arkay gantaalada wuxuuna mid ka mid ah gantaaladaas ku qarxiyay hawada muddo yar kadib markii uu duulay. markii Storm Shadow taas arkay wuxuu fahmay in kooxda G.I. ay heleen saldhigga sirta ee Maris Industries wuxuuna ciidanka Cobra u diray weerar degdega. dhanka kale Bronis ayaa walwalsanayd sababtoo ah xasuustii Duke ayaa daba socotay. taasi waxay maskaxdeeda ku abuurtay jahwareer. Washington madaxweynaha Mareykanka waxaa la geeyay hangar sababtoo ah kooxda madaxweynaha waxaa soo gaartay xog ah in gantaalku ku soo wajahan yahay caasimadda. Ripcord ayaa qaatay diyaarad si uu u joojiyo gantaalada. inta kale ee kooxda G.I. waxay gudaha u galeen xarunta James. Bronis oo xasuusteeda dhibayso ayaa gashay shaybaadhka doktorka. si kadisa ayay u weerartay doktorka waxayna badbaadisay Duke. markii Duke uu arkay qorta Bronis wuxuu fahmay waxa ay tahay calaamadaas. Bronis hore ayay u noqotay dhibano nanometisa. doktorkii oo dhaawacan ayaa isticmaalay remote-ka wuxuuna suuxiyey Bronis. wuxuu Duke ugu hanjabay haddii aad wax khiyaano ah samayso Bronis waan dilayaa. doktorku wuxuu Duke u sheegay 4 sano ka hor markii aad tagtay waxaan arkay walaashii oo niyo jabsan oo keligeeda. markaas ayaan jirkeeda si qarsoodiya ugu dooray cirbado nanometisa si aan u xakameeyo. weligeedba daacad ayay ii ahaanaysaa. qaybaha kale ee saldhigga Snake Eyes iyo kooxdiisa ayaa horey u sii socday iyagoo la dagaalamaya cadowga. gujiska dushiisa General Hawk wuxuu Happy Duty ku amray inuu weeraro saldhigga biyaha hoostiisa ku yaala. laakiin ka hor inta uusan weerarku bilaaban ciidamada Cobra ayaa jidka u jaray kooxda G.I. dagaal xoogan ayaa ka dhex dhacay biyaha hoostooda iyagoo nadiifinaya cadowga. kooxda G.I. waxay gaadheen qolka laga maamulo gantaalada halkaas ayayna Ripcord uga sheegeen halka ay marayaan gantaalada hadhay. White House-ka madaxweynaha Mareykanka waxaa la geeyay hangar ay dhistay shirkadda Maris Industries oo si buuxda loo ilaalinayo. waqtigan ciidanka Cobra waxay weerareen gujiskii G.I. jawaab ahaan General Hawk wuxuu Happy Duty ku yiri sida ugu dhaqsiyaha badan u beegso meelaha jilicsan ee saldhigga. gudaha saldhigga Duke ayaa hareereeyay James oo weerarsan ayaa isku dayay inuu Duke nolosha ku gubo laakiin Duke wuxuu isticmaalay qoriga G.I. wuxuuna ku celiyay James. taasi waxay sababtay in dabkii uu ku noqdo James. wejiga James ayaana si xun u gubtay. jahwareerkaas dhexdiisa doktorku wuxuu ku dhacay dhulka. remote-kiina wuxuu galay gacanta Duke ayaana mar kale miirka u soo celiyay Bronis. markii Bronis ay soo baraarugtay doktorku wuxuu ka faa'iidaystay fursaddaas isagoona James oo dhaawacan la baxsaday hawada sare. Ripcord wuxuu burburiyay gantaalkii ka hor inta uusan bartilmaameedkiisa gaadhin. isagoon istaagin wuxuu diyaaradii u weeciyay gantaalka labaad oo si xawliya ugu socday Washington. si lama filaana hangarka madaxweynaha waxaa ka dhacay khiyaano naxdin leh. nin ka mid ah shaqaalaha madaxweynaha ayaa laayay dhammaan ilaaladii. ilbiriqsiyo kadibna nin ayaa ka soo baxay meel qarsoodiya. markii madaxweynuhu arkayna uu naxay Snake Eyes wuxuu soo gaadhay meesha laga maamulo madaafiicda wuxuuna dilay askartii halkaas joogtay. kadib wuxuu
wuxuu wajahay Storm Shadow mar kale ayuu dagaal dhex maray waqtigan doctorku wuxuu James kula baxsaday Guchis laakiin Duke iyo Baroness ayaa Guchis kale ku eryaday dagaalka u dhaxeeyay Snake Eyes iyo Storm Shadow uu socday ilaa ugu dambeyntii Snake Eyes uu ka adkaaday markii gantaalkii u dhawaaday Washington Ripcord wuxuu waqtigii saxda ah qarxiyay gantaalkii isla waqtigaas Nanomitiskii ku jiray gantaalka ayaa ku dhagay diyaaradda Ripcord waxayna bilaabeen inay cunaan diyaaradda maadaama uusan wado kala haysan Ripcord wuxuu diyaaradii oo Nanomitis ku daboolan yihiin u duuliyay dhanka hawada sare wuuna ka booday ka hor inta aysan qarxin North Pole dadka oo hadda si buuxda isku bedelay wuxuu askartii ku amray inay burburiyaan saldhigga iyo shaybaadhka taasi waxay sababtay in saldhigga la qarxiyo markii ay arkeen saldhigga inuu dumayo Scarlet Breaker iyo Snake Eyes waxay u ordeen wiishka waxayna waqtigii saxda ah ku gaadheen dusha sare dhanka kale Guchiska dhexdiisa doctorku wuxuu jirka James ee gubtay ku duray cirbado Nanomitisa hadda madaxa James wuxuu isku bedelay bir waxaana loo bixiyay magac cusub oo ah Destro doctorku isaguna wuxuu isku daray cirbado Nanomitisa wuxuuna noqday taliyaha ciidanka Cobra muddo yar kadib kooxda G.I. Joe ayaa hareerisay Guchiska oo labadoodaba qabatay ugu dambeyntii waxaa lagu xiray xabsi aad loo ilaaliyo mar dambe saynis yahanadu waxay Duke u sheegeen in ka saarista Nanomitiska jirka Baroness ay qaadan doonto waqti dheer Duke wuxuu Baroness u ballan qaaday si aan ku badbaadiyay wax walba oo karaankayga waan u samayn doonaa sharwadayaashii waxay galeen xabsiga halyeegiina wuxuu helay halyeyadii adiguna waxaad like saartay muuqaalka oo ilmaamtay inaad like dhahday waxaana ka codsanayaa inaad channelka subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay waxaan halkan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan oo ku cajabin doona waxaan ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga sidaas iyo nabadgelyo